baarlamaanka kalfadhigiisii toddobaad kulankiisii wadajirka ah ee lixaad ee qabsoomay 26-ka bisha 9aad 2020 wuxuu ansixiyey sharciga heshiiska siyaasadeed ee jihaynta doorashooyinka baarlamaanka federaalka ee 2020 waxaan rabaa inaad xasuusataan heshiiskaasi oo ay ku heshiyeen dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaan u bedelnay sharci lagu aado doorasho dadban 2020 waxaa ku dhex jira qodob ilaalinaya in uusan dhicin firaaq dastuuriya uusan dhicin isweydiina marka firaaq dastuuriya muxuu yahay qodobka sidaan ayuu baarlamaanka u ansixiyey waa qodobka saddexaad oo sharcigii doorashooyinka dadban aan ku ansixinnay waa xilhaynta hay-adaha dastuuriga ee dowladda faqradda koowaad si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka baarlamaanka tobnaad oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhammaystiran ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la dhaariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11aad ee Soomaaliya si waafaqsan qodobka 6aad ee dastuurka federaalka iyo wax ka bedelka lagu sameeyay sharciga lambar 27 bishii 6aad 2016 fasiraad yar waxaan u baahannahay marka qodobka 6aad qaabka wax loogu bedelay inaan fahmno horta halkan waxaa qoran baarlamaankii 9aad si uu ilaaliyo vacuum inuusan dhicin ama firaaq dastuuriya uusan u dhicin ayuu wax ka bedelay qodobka 6aad ee muddada xilhaynta ee baarlamaankii 9aad waxaa la dhaariyey bishii 8aad 2012 xilkiisi wuxuu dhamaanayay 2016 bishii 8aad 20 taqriiban laakiin baarlamaankan tobnaad baarlamaanka 9aad ilaa wuxuu sii joogay December 27deeda 2016 oo la dhaariyo baarlamaankan tobnaad sidaan ayuu qoran yahay marka qodobka 6aad oo aan rabo xildhibaanada inay ku buraarugaan qodobka 6aad muddada xilhaynta faqradda koowaad muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo dastuurku wuxuu u qoran yahay doorasho guud oo waddanka xisbi lagu galo markaa kadibna natiijada yani doorashada guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qabta yani doorasho qof iyo cod ah markaa kadibna natiijadii lagu dhawaaqay ayuu ka hadlay kan waxaan u guurinay markaa doorasho dadban idinkaan ansixiyey marka qodobkan u fiirsada wuxuu leeyahay muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo wuu sheegay dastuurka muddada ay ka bilaabanayso wuxuu sheegay natiijada doorashada markaa lagu dhawaaqay bilaabanaysa meeshay ku eg tahay waa la ogyahay waa 4 sano sida baarlamaanka 9aad aan u soo tirinay baa loo tirinaya laakiin su'aasha la isweydiinayo waxay tahay haddii doorasho ay dhici weyso maxaa la samaynaa oo 4 sanana ay dhamaato waxaa la yidhi waxay ka bilaabanaysaa muddada xilhaynta baarlamaanka marka natiijada ay soo baxdo la sheego meeshii aan ka soo bilownay mesela 27 December aan ka soo bilowno baarlamaanka federaalka baarlamaanka tobnaad xilhayntiisii waxay dhamaanaysaa 27 December ay dhamaanay haddii xilligaasi baarlamaanka tobnaad uu diyaar noqon waayo baarlamaanka 11aad sax haddii baarlamaanka 11aad xilligaasi diyaar noqon waayo hay-adihii dastuuriga ah maxay samaynayaan marka qodobka 6aad markaa fiirisaan sharciga hadda aan meeshan ku kood garaynay oo xeer uu ku soo saaray madaxweyne
madaxweynihii markaa jiray xasan sheekh sida loo bedelay sidaanay ahayd. waxaa muddada xilhaynta golaha shacabka ku egyahay marka la dhiso golaha shacabka bedeli lahaa. kan waa xeer madaxweyne ee sharcigii wax ka beddelka qodobka 6aad lagu sameeyey oo ku soo saaray madaxweynihii xilligaasi xilka hayay. wuxuu leeyahay markuu tixgeliyey baahida loo qabo inaysan dhicin maqnaansho hay-ad yacni siyaasadeed inta laga dhisayo tii bedeli lahayd. baarlamaanka 9aad iyo madaxweynahooda oo madaxweynihii markaasi jiray waxay ilaaliyeen firaaq inuusan dhicin. marka baarlamaankii 9aad ilaa wuxuu soo socday 27 December ayuu soo gaaray iyadoon firaaq la gelin. waxaa u malaysaa annaga qodob aan ku sii darnay, waxaan nidhi awooddiisa ay u dhammaystiran tahay baarlamaanka. taas micnaheedu waxaa waaye maanta miisaaniyadda markaa ansixisay maanta miisaaniyadda markaa ka doodaan iyo shuruucda kaleba waa sii wadi kartaan. ilaan qodobkaas wuxuu u qoran yahay awooddiisa ay u dhammaystiran tahay. sidaasi markay tahay shaqaan noo harsan. dastuurka dib u eegista dastuurka way soo socotay. guddiga isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka aaday uga soo shaqeeyeen iyo dabcan hay-adihii kale oo dastuurkaasi u fududaynaya say ugu shaqayn lahaayeen. dastuurkaasi waxaa la rabaa asaga laftiisa baarlamaankii 9aad meeluu ku gebagabeeyey baarlamaankan waa inuu meel ku gebagabeeyaa.